maxaad nooga warrami karaysaa taas walaal waxa maanta u qabanay shirkan jaraa'id oo nagu kalifay oo annagoo doonayn dhibka Soomaaliya ka jiro in dhib kale lagu daro ayaa waxay kaliftay in taariikh soo qorneed kumanaan sano oo aad garanaysiin haddii aad tihiin saxaafad haddii ay yihiin waxgaradkii hadday yihiin culamaa u diinki hadday yihiin dhaqankii waa garan kartid dadka Soomaaliya sida u kala deganaayeen dhulka iyo sida loo kala dagaalgalay waxaad ogeydeen imbratoriyadii lala dagaalamay ee xabashida ninkii hogaaminayay Axmed Gurey nimankii la dagaalamay sagaalka ilma cali waa Charles waa Gur waa Akish waa sagaalka ilma cali ee la yiraahdo madaxweyne dirba halka waa kii dagaalka odagooda guusha badneed oo hadda maanta xataa loo qoori waay dir Axmed Gurey waa dir in la yiraahdo ee maaliba qolo sheeganayda marna la leeyahay Arab oo ahay marna la leeyahay Kambo kow waxaad ogtahay dagaalkii lala galay Talyaaniga oo ciidda Soomaaliya inuu soo dago nin gumaysta oo empire loo diiday ee ay gobolada qaar aqbaleen xabadu markii dhacay oo dhibku dhacay oo dhibaatadu jirtay oo ayaga u bareereen dadkaas maantay dhibka lagu hayo waa ujeedaan waxa kamid ah in ciidooda loo soo shaqatay waxa kamid ah naftooda inay ku waayeen waxa kamid ah in la isku hirdi oo maalin walba xagga iyo xagga loo maro oo aana ciidu danayn oo aana yaani dadkaas maantay waxba loo ogeyn waxaan faraynaa walaalaha direed baraarug baajo waxaan u yeernay dhammaan qurba joogta direed meel kasto ay joogaan waa madaxweyne dir waa madoobadir waa madaluu waa mahadir waxaan diiwaan gelinay 500 oo kun oo qofood oo qurba jooga oo London iyo Europe iyo Australia joogto intaas baana ku filan inay maantay dalka loo soo duulaan tagay ee la doonayo in la lunsado marka horena taariikhdiisii la aasay oo taariikhdiisii loo diiday dadkii iska lahay xataa in loo qoro wargumaysi baa lala dagaalamay waa aragteen taariikhda laga qoray markii in Cabdulla Xasan uu dagaalamay waad aragteen markii taariikhaha laga qorayo dadka kale weli ma aragteen taariikhda gumaysi lala dagaalamayo Talyaani meel ku qorta ma aragteen ma nooga warrami kartaa dhulka dagaaladu ka dhaceen iyo meesha ay madaxweyne direed ay boqortooyadoodu fadhiday ilaa iyo xilligii Talyaanigu uu yahay waxay fadhiyeen nimankaas Shashawane Awaash dhulkaad ogtahay Ethiopia waxay u jirtaa Addis Ababa nimankaas waxay u jiraan 120 kilomitir waxaan dhamay laga soo bilaabo halkaas ay degan yihiin ee Awaashe halka u kaxay waxa geeydaa meesha la yiraahdo ee Casamar agteed dib u soo celi ilaa Djibouti keen halka ku soo celi xaga ka soo wareej Xaafuun Badar Bayla Hurdiya Xaaba dhulka korokeen dhulkan la yiraahdo Garacad Hooya Xaradheere Cadali meel ayna deganeen Warshiq intaas oo dhan waa dhul diru leedahay oo ay degan yihiin oo boqolkiiba ay ka yihiin dhulka aan ku sheegay boqolkiiba waxay ka yihiin boqolkiiba 60 meel waxay ka yihiin boqolkiiba 45 laakiin ugu yaraan waa 45 kursi oo ay ka helaan iyo xurmad ay ka helaan iyo soo dhaweyn ay ka helaan mala kow waxaan ku sheegayaa laga bilaabo magaalada Jasiira ilaa Tanarifa wada garanayda Tanarifa waa Kenya waa gudaha Kenya gobolka Tanarifa ilaa Moyale ilaa dhinacaas iyo Boholgaras iyo Doolow iyo halkaas aadi halkaasna waa meel aan la lahayn oo nature oo ayaga moogiya boqolkiiba 5 meel degan dad noocaas ah waa gudaha Nageyle iyo dhulka Moyale ku aftirsadaan Baalle iyo Boorane iyo Warday iyo dadka qabaa'ilka noocaas gaalamada loo yaqaan dadka gaalamadooda loo bixiyay ee la xaq daray
waxa lagu sameeyay nimankii direed ilaahay baa subxaana qaadirahay wuxuu ku sameeyay dad iyaga la kala qaybshay masiibo markay bini'aadan ku dhacayaan tawafuruur bay ilaahay ku riday waxa iska hor yimaada walaalkiis iyo asaga iska hor yimaada markii mashkiladu dhacayso mashkiladaas waxa keenay tawafuruurka ahay in nin asagoo la yaqaan cali madaxweyne in gaalamadow loo bixiyo la weeraro ayaa mashkilada keenay wala socota ceelka kismaayo gaalamadow laga bixiyay kana laga bixiyay kana laga yeel maluglee war gaalamadow waa warday cali madaxweyne ma jirto wax gaalamadow la yiraahdo waa truufe iyo qiyaamo dadka lagu sameeyay marka ma nimanka loo soo kaxaystay Talyaaniga ee la rabay in lagu jabiyo Talyaanigu maaha nimanka waxa jabiyay Soomaali baa isugu tagtay hatta qayba dir kamid ah isugu tagay xeer inji xeer la bixiyay xeerkaas qalad buu ahay waa xeer walaalaha lagu dulmiyay waxaan hadda faraynaa dhammaan odayaashii direed oo qaashi taariikhda dhabta in la daba galo in dadkii dhulka iska lahay oo nature ka hay dhul ninkiisa waa iska leh nin kasta oo doonayo dhulka inuu boob ku qaatana wallaahi una qaadan waana ogaa doontaa al aqabtum lil muttaqiina wala udwan ala dhalimin kuwa muttaqiita ayaa gacantooda ku dabayda ila muttaqiitana waxa weeye waa kuwa ayaga ciid iska leh ee la dulminayo daahir waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo dhulka u dhaxeeya jasiira ilaa iyo Tana River ee aad noo sheegtay ma wabiga iyo badda meelaha ay iska galaan iyo dhulka khayraadka ummadda Soomaaliyeed ay indhaha u wada taagayso dhulka ay degaan miya qabaa'ilka direed dhulka weeye dir waa ballaaran tahay ilaahay baa ballaariyay ma la dhihi kara qabaa'il waxa ku saxaya walaalkiyo dadku waa qoomiyad maaha diri ee qabaa'il maaha horta saas ugu waa numberka labaad dadkan waa qaar baa dawladaha yaa ka mid ah dawladaha waad garan kartaa dawladda Djibouti oo madaxweynaha Ismaaciil Cumar Geelle waa dawlad Soomaaliland waa dawlad oo Maxamed Nikoliya Axmed Silaaya madaxweynaha dadkaasi ma og yihiin inay yihiin beelaha direed inay ka mid yihiin oo dadka la dulmayo dhulkooda boobka maanta loogu soo isugu habarwacanayo inay wada dhasheen ma og yihiin dadkaas wallaahi ni waliba ni walaalka isoo heli tira walaalkuma aha la yiri afadaadu aad tiraahdo wax isina afa kuma noqon karto waxa weeye walaalka hadda maanta halkaas joogo kulay waa garab oo jeeda dhibka waxaan ka codsanayaa walaalaha direed inay gacanta isqabsadaan inayna marqaati iskaga noqo duulaanka dhulkooda lagu hayo Falastiin bay ahayd qaabka hadda socdo waa qaab Falastiin waad ogeydeen 22 sano ayaa xagga loo maray wax ka dabqada ma jirto wabiga laga gabay buuraha lagu gubay waa la dilay wax kasta lagu sameeyay maanta waxay marayaan in gaalo loo soo kaxayso yaa soo kaxaysanaya gaala Soomaalida kala u soo kaxaysanaydo oo waxa loo soo kaxaysanayaa in dhulka lagu banaysto oo inta yaro hartay ee nafla caariga ee dagaaladii xagga loogu maray ka hartaba haddana la rabaa in dhulkii wixii inta yaraayo beeraha in gacantooda laga bixiyo Soomaalida kale ma ku dawladda Soomaaliyeed ee federaalka ka soo horjeeda u daleedahay ee Jubbooyinka isku urursanay dawladda ma ahan dawladdu waxa weeye waxa ka codsanaynaa inay dadka maanta la dulmiyay Xasan Sheekh nin cadaaliya oo caalamka uu soo dhaweeyay ayaa lagu qiyaasayay laakiin hadda qaabka oo wax ku wado qaab sax ma ahan dadka dulminayaasha dulmanaha inuu maanta u aaray ahayd laakiin inuu kuwii dulmiga geystay maanta garab istaago ama u hiiliyo ama kuwa kale soo kaxaystay Kenyaatiga ha noqdaan ama kuwa asaga la jooga ha noqdaan meesha dadkii shalay dambiga laga galay war dadka ama la isweydiiyay ciidoodii dadka in loo soo celiyo ilaa waxa bini'aadan oo wax ku yahay waa ciida dadkii gacantooda laga bixiyay beerihii gacantooda laga bixiyay waa la socotaa dawladda si aad baray markay timid in dan guud guri dhul la bixi jiray yaa iska dadka guud yaa iska lahay yaa la ama noo sheeg dan guud waxa iska lahay dadkii u Talyaaniga la dagaalam ee 22 sano jilibka waas ee xaaladoodii meesha uga martay oo intaasoo kun oo ciidan uga dhintay oo taariikhdooduna dib inta la hoosta laga galiyo la yiri beerahoodii mooska
oo moosku soo baxayo baa leeyahay danguud baa loo bixi danguud adiga laba beerood baa leedahay war beerta aabahay baa ku dhintay oo anaa dhibiga soo gaaray oo wax magdhawa kaba helin oo ciida anaa iska leh oo ilaahay baa igu abuuray qofka bini'aadamka ilaahay meesha ku abuuray in loo daayaa fiican ilaahay baa ku abuuray waa dad native oo ciida iska leh ilaahay asaga wuxuu bini'aadam siiyay inaan adigu isku dayday damac kaa galama waxa weeye ciidan laga bilaabo magaaladan aan ku leeyahay jasiire ilaa Tanarifa waxa iskale dadka dirka la yiraahdo oo taariikhdoodii ka seexday oo aana doonay maanta inay runta isku sheegaan oo aana doonay maanta inay naf iyo maal ku bixiyaan hadda waa diiwaan gelinay wallaahi alxamdi noloshii baan ugu soo noqotay 500 oo kun baan diiwaan gelin oo diyaar u ah qofkiiba inuu kun bixiyo waa imisa milyan 750 milyan oo dollar baa diyaar 750 milyan ayaa diyaara inay ciidan iyo saanad iyagoo cidna baryin Talyaaniga markii la bixinay ma maqashay meel ay u doonteen gacan qabad iyo cid ay soo weydiisteen iyo cid ay wax ka doonteen miyaa maqashay maya taariikhdaas boob Soomaalida waa laga qariyaa sababtoo ah nimankii Talyaanigu dhulka kaga tagay waa nimankii u adeegayay ee gumaystaa u adeegayay haddaba waa taas waa runta waxaan moodaa inaan wax ka ogtahay taariikhda qeyr Allah ku siiyo aad baad u fiican tahay taariikhda ma dhicin markii shalay dagaalku socday oo gumaystaha lala dagaalamay wax oo maanta halkaas ka dhacay oo la dhihi karo cid bay u tageen maalin gelinkeed oo ay weydiisteen dadka qaar baa la deganay galadi waa deganay shiiqaal gadarshanimo le waa deganayeen waxa deganay nima kale oo gaal jecel ah oo ayagana meesha deganay laakiin intaasoo dada iyo adigu contribution wax bixiyay ama ciidan ku taageeray ama saanad ku taageeray ma jirin nimanku ciida waxa u dhintay ninka iska leh dhabahan laakiin nima iska lahayn xabadiyo ku dhicin buu iska tagay wala socota xaalado badan baa soo martay wadanku waxa nimanka lagu dayay waxa lagu dayay ma jirto mar sheekh loogu yimaado mar loogu yimaado ciidan mar loogu yimaado unisom mar loogu yimaado amisom marba si baa loogu imaanay waxa weeye dhibaatada ugu weyn waxaan ka tarsanaynaa siyaasiyiinta oo soo hana qaaday oo u galay oo xilka noo qabtay oo maanta 5 bilood markii la qaybsanay 5 beelood oo Soomaali u qaybsatay beesha direed koob iyo 60 nin ee baarlamaanka heleen maxaad ku leedahay kow iyo 60 kaas xildhibaan iyo 5 wasiir iyo siyaasiyiinta iyo aqoon-yahanada ku jiro iyo ciidanka qalabka sida oo dir maalin dhaweed markii shabaabka laga saaray waxbay ku lahaayeen oo general dhiga badan hadduu joogi lahayn maanta general dhiga badan hadduu joogi lahayn filla Soomaaliya nabad lagu ma seexday hayeeshee arrinta anagu dawladda hadda wax dacwad oo aan u gudbanayno wixii dacwada berri baa u gudbanaynaa warqad baan u qoraynaa berriyeena shir weyna dhacaya hadda shirkaan hore dhac weeye waxaan ugu tala galnay dadkii in aan notice uga dhigno oo ujeedadiisu waxa weeye waxa xisaab adag la xisaabtamayna oo aanan u cafinayn 61 xubnood oo danta direed loo dhaariyay ilaa ma jirin ninka wood meel loogu soo qaado ma jirin qabiil baa soo doortay nin waliba qabiilkiisa haddii maanta aniga adigoo isku nimid ee qabiil wax ku qaybsanay hadda anigu aan ka sugo inaan aniga wax sida adiga ma cadaalad way ku tahay maya cadaalad ma waa qaybsanay 4.5 beelood baa lagu qaybsaday 5 beelood markii lagu qaybsaday waxa adiga aniga ka ahay kama hid dastuurka qorayo sharciga lagu heshiiyo qorayo waxa hataa qayaano lagu sameeyay road map saxiixaya 6 saxiixa jira 6 saxiixa nin dira ma ku jiray oo qali ka sitay maya waxay u egtahay nimankii u adeegayay uma shaqadii dhamaysanayay nimankii awalba waxaa jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo halkaa kuwa aan kaga baxno kuwa kumeel gaadhka dowlad rasmiya baa la noqday wadankii power sharing baa la qaybsaday 2 beelood baa isfiirsada oo midna meesha markay madaxweyne noqdo
beesha kale problem bay samaysaa iyadoo oo hor istaagaysa tan beesha madaxweynaha ah oo maanta uu ka dhisay xasan sheekh arrintaas sideed u aragtaa ma arrin inuu ay fiirsadaan ay tahayba waxa weeye horta insha Allah taala waa la gaaray xilligii aan hurdada ka cilahaynay dadku hadda in badan baa ku saan ku sheegay 700 iyo 500 oo qofood baa 500 oo kun oo qofood baa isdiiwaan geliday oo maanta diyaar u ah inay wax walba ku bixiyaan waa maanta diyaar u ah inay ciidooda difaacdaan oo maanta diyaar wax badan laakiin su'aashaada markaa ka jawaabo waxa leedahay tii aan ka gudubno ku meel gaarka waxa la hal baadiya niri xalaal ma dhasho ku meel gaarka waxa maanta la isku haysta way road map ba anagu aan garow ku gaarnay garoowan iyo garoowatu al yiraahdo war beesha saddexda beelood oo raxaweyn iyo hawiye iyo daarood baa siixay labadan beelood oo kale wax ma ka siixeen ma aan arkayn cid dir matasha marka maadaama kaasu marka maanta ina haddana kismaayo inta lagu soo duulo leeyahay rood maamka ku jirto federalismka in la walba ciid buu leeyahay ciidiisa nin walba quruxsan kara laakiin deegaan islaameed leeyahay oo dagaal u galay oo gumaysta ka kiciyay inaad adiga federalism iyo waxa ku qaadi xaraan bay ka tahay war dadku waa soo jeesteen filmaanta hore waa xirmeen haddii shalay la kala dhuuma jiray haddii shalay dir wax xeeri jirtay hadday shalay dhii jirtay dir naga daayay waryaana dhibka Soomaaliya dhib lagu darin maanta waa soo xiratay sida la socod Sheikh Sharif markii uu magacaabayay ra'iisul wasaarayaasha nin diraha Kennedy waxa ahay in loo magacaabo ah waliba inaan ninka liira in oo maarin liira Sheikh Sharif waa fiirshay nimankii kale oo tolka ahay wax ka dhaadhici waayay ujeedadii waa uu soo noqday wuxuu adika faataxda ku fiican faataxda qaat Sheikh Sharif ninkii waa ka aqbalay walaalkeena alxamdulillah waa wax iska nasiib darra ina maanta adiga faataxa anigu aan ku mari karo adna ii mari kartid inaad masab dad u leeyahay oo qabiil leeyahay inaad iskaga tagto waa iska nasiib darro Sheikh Sharif waxa uu afkiisa ka qaaday mas'uul Soomaaliyeed baa wuxuu yiri samarka direed baa lagu joogaa samirka direed baa halka lagu joogaa maanta samirka waa xirmay walaalow samirka inuu maanta xirmaa ku sheegaya 500 kun baa diiwaan gelinay waxaana la xisaabtamaynaa nimankeena matalaya hadii ay bari baa la hadlay hadalkii in bari la hadlo madasha bari taala hadii awaamirta aan soo gudbin ay dhici weydo waxa dhici doonto inaan nimankaas anagana matalaya kalsoonida kala noqono in ay maanta waa gara kartaa qurba joog baa aalay cid waliba cideedii u dhaahaysa warshan baa wax lagu qaybsaday nishan wax ku qaybsaday macirkaan laga keenay dadka adig shalay markii la salagta garay oday baa ku salagta garay adig xildhibaano kaadna oday hawiya soo salagta garay ama oday daarad baa soo salagta garay ama oday raxweyn adiga odagaaga maxaa u ceebaynaysaa maxaa iskaga dhigaydaa ninka adiga ka baawar hoose xaquuqda ninka au qaata qaadanayda 16 ka degmo 4 degmo diruleed afartii degmo diruleed nin u tagay oo xildhibaan oo ka hadla ma jirto ma 16 ka degmo Muqdisho 16 ka degmo Muqdisho aan soo noqonayn afar degmo noo sheegi karaysaa degmooyinka yihiin degmada Cabdicasiis degmada la yiraahdo Shibis degmada muxuu ahaa Ilaahay kuwa darnaade la yiraahdo Hodan degmada Ilaahay kuwa darnaade Holwadaag intaasoo dhan baa iska leed waxa soo dhan taariikh madow baa la saaray rag baa ku tuntay ujeedada loogu tuntana waa dadka oo meesha siyaasadda noogu jira si dhaba waxa u baaraan hala fariistaan dadkii wax ogay ha u yeeraan odayaashii ha u yeeraan dhaqan baa jiray yeena seexanin waxaan waa wax ayaga loo dhiibtay ma aha wax ay sameeyeen oo ayagu ay leeyihiin qabiil baa laga soo saaray waa soo saglati garaynay odayaal baa loo yeeray odayaasha kale dadka ay keesada xildhibaanada waxbay ku tareen waa u jeediyay hadda maanta waad arkaydii xildhibaanadii ka soo baxay Muqdisho oo Kismaayo fariist war kuweena dhibka lagu haya maxay tahay niman baaba ka soo tagay la socday ayaga la joogay markii dagaalkan u dhacay ma soo bixi waayeen xataa ma imaan waayeen dagaalka dhacaya Kismaayo daleed Kismaayo shalay markii intoona Kismaayo Kenyaati imaan niman baa soo fariistay oo saana u yimid oo aan dadka yaani hadda anaga maanta aan ka astokooyin ay kamid yihiin war markay shalay soo baxayaan nimanka odayaal baa keen xildhibaano way kuwana waa xildhibaano maxay kala bedelayeen ma dadka shaar kala gooni ugu jira ma dawlad iyo kuwa darnaad loo kala sokeeya dawladda federaalisiga
oo la dhisay oo qarana oo adduunyada aqoonsi dowladda wey laakiin nin waliba hadda waxaa ugu jira shaati qabiil 4.5 beelood baa laga soo qabtay 5 beelood buu meesha ku joogaa nin ka sarreeya ma jiro hadda maanta nin waliba xaquuqda waa loo sameeyay xataa wax ruqsad la sii karo oo ayaga oo ruqsad ay sii karaan ma jirto beesha ayaga ay ka dhashaan ruqsadna sii karto soo celi karto qofkii annagu maanta daliil xoog la waxaan u jeedinaynaa xildhibaanadeena iska jiifo oo maantay gara waaye waxa ay garteen kuwa kale oo duulaanka ku soo qaaday ee doonayo in annagu deegaanka aan ahayna nala afduubo oo afduu shalay baa dardaryana la ku dilay oo saas la isku herdamay dushaan oo cid wax ka tiraada jirin oo human rights waxba ka qaban oo ay waxba ka qaban Amnesty International oo ay waxba ka qaban Mareykan oo waxba ka qaban Ingiriis oo aan la qorin shalana taariikhdii waxa la duugay oo muxuu ahaa taariikhdu waxa la duugay shalana ee Talyaaniga oo gumaysiga oo malaayiin qofood ay ku ruux waayeen oo hatta aan la dhihin war dadkaas magdhow aan ka bixino maanta Yurub nin waliba ay dambi ka galay magdhow bixinaysa war hatta waxay awoodi waayeen Yurub hatta maanta inay magdhowgii dadkii ay laayeen oo sida qaladka u laayeen dhulkooda duulaanka ugu tageen inay hatta ay soo qaadaan maanta nimankii taariikhdooda soo bixinay xildhibaanada ahaayeen maantay maraaqoomada maraba qalin ka haydaali waa gara kartaa gabayga laga tiri gabayga markuu Talyaanigu jabay waa ku marinay Talyaanigu wuxuu moodi jiray inuu yahay wuxuu tabatabay wuxuu tamacudlayaa wax Talyaani la isku hadlayo taarki iyo siinka rag Italiyaan jira wuxuu taar u bixiyaaba ma ka tagay turaabto tabar haduu waa tusbax go'aysidiisi 110 meelad waa la qari meel baa la gali wali يا قري تاريخ ده waxa qariyay nimankii shalay ogolaaday inuu soo dago dal Talyaani okay ana gabagabadii baan joognaa interviewga waxaad noo sheegtaa maxaad kula dardaarmi lahayd beesha dareed waxaan kula dardaarmayaa tareenku waa kacay waa socdaa 500 kun baa release garayday nin weyn baan ahay waxaan sheegayo waa gara karaa 500 kun baa kacday dadku yeena dadkooda ka harin diray maantay nin waliba waa arkeeda odahay waa arkeeda oo oday daarood waa aragnay oo oday absama waa aragnay oo oday nin waliba waa aragnay war maxaa oday daar oday direed loo waay oo maxaa siyaasad direed loo waay oo maxaa wasiir direed loo waay oo maxaa loo waay xildhibaan direed war dadku madirnimada ka dhuumanayaan dirku ma wax aabay noqonayda dadka waxaan faraya oo haddana faraya oo mar labaad u sheegaya dir meesha adduun ayada Soomaaliya ku wareegsan inta kale oo markii lagu rido miisaan diru miisaakeeda cuslaanayo 3 walaayad baa ku dhaarbeen ahayn waayo ilaa jaarso ilaa gurgurre ilaa isaaq ilaa gudibiirsay ilaa ciise ilaa surre ilaa daba agoon foqa maxamed qubays foqa umar war ma ku tiriya illa biyamal illa warday illa war ma dad la xisaabi karaa war inta isku geey 4 qubays malaayiin waxaan ku tirinayo wax faraka cayaarama waa gara kartaa markii gabaygii ii doordir weeyaa duul la soo kici gabayada ah dadku inahayeen iska tiri xajay iska saarin igama dhaga yaro igama cilmi yaro igama aqla yaro maantay berina waxaan qabanaynaa insha Allah ta'ala shirba qabanaynaa aan kaga hadlayno dulmiga la geysanayo aan kaga hadlayno xaq darrada la kala galayo aan kala hadlayno nimankeena xildhibaanada iska jiif oo barkata dhigta oo sugayo in gacanta nin walba maalinta ka qabsado meel u kaxay oo sugayo kaali aniga codkay gurid berri meeshi hadda Somaliland waa Somaliland Djibouti waa Djibouti walu fiiri waa laba dal ninkan maantay hadii oo waayo 1 kaanu berri waxay ku qasbay 4 sano ka bacdi inay doorasho aadaan dhulkooda hadii laba waxa ku soo galay ma dadku tugsana maanta qabiil baa ku keenay chance baa haysta berri dhul baa u baahanta ka soo gashay berri dhul baa u baahanta dhulkaagina waa laba waan fiirsanaysa marqaati baa ka ta berri xagee ka soo galaysa berri waxaan kula dardaarmayaa siyaasiyiinta aqoon-yahanada qurba joogta salaadiinta culamaa u diinka haweenka dhalinyarada
intaas waxaan kula dardaarmayaa maanta inay dalkooda difaacdaan ilaahayna waa garab gelayaa waana diyaarsanahay insha allahu tacaala biidnillaahi kariim waxaan ka bilaabaynaa jasiire ilaa taariifo inaan isku banayno oo aan ka dhigno meel ay ciddaas moogiyo cid kale wax ka cun waana khayr baan idinku ogahay waana mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi.